Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dhammaan waa wada salaamay walaalaha ku xiran channelkeena Zimikis Perfect. Maanta muuqaalkan waxaan idinkula wadaagi doonaa sida loo isticmaalo toolka Synchronize in Adobe Premiere Pro. Ujeedada ugu weyn ee loo adeegsado toolkaas waxay tahay in videoga iyo audioga hal mar isla bilaawdaan misna hal mar wada dhamaadaan. Oo mararka qaarkood waxaan aragnaa video iyo audio kala horeeya. Badanana waxaase farsamadan adeegsada dadka muuqaalada iska soo duubaan, kuwaas oo kaamirada microphone-kooda aan jeclaysan codka ay soo gudbinayso. Isla markaana waxay adeegsadaan external microphone. Kadibna waxaa laga yaabaa inay waqti badan kaga qaadato isku aadinta muuqaalka iyo codkiisa. Marka maanta waxaa idin tusin doonaa sida fudud aad iskugu aadin karti videoga iyo audioga ama muuqaalka iyo codkiisa. Marka daawasho wanaagsan. Ugu horreyn sidaad u jeedo hadda meeshan desktop waxa ii saaran folder ayaa ii saaran. Marka hadda sidaad u jeedo meeshan waxay noogu diyaarsan video iyo audio ayaa noogu diyaarsan. Marka videoga waxaan rabnaa kaliya inaan ku baraatikeeno waa cashir hore aan aniga u soo diyaariyay. Marka kaba soo qaad tusaale ahaan videogan codka saaran waa cod low quality. Markan codka aan soo habeeyay kadibna waxaan ka soo dhigtay mp3 file ayaan ka soo dhigtay waa midkan. Marka waxaan rabaa inaan isira dul saaro aniga waqti badan aysan iga qaadanin. Adobe Premiere Pro markaan sidaan oo kale aan u soo furano ugu horreyn project panelkaasi ayaan meeshan double click siinayaa. Kadib marka folderka waxay noo saarnay desktopka. Marka desktopka labada selection ayaan saaranaynaa kadibna open ayaan leenahay. Sidaas ayaan waxaan ku soo gelinaynaa Adobe Premiere Pro. Synchronize kan laba qaabood waa loo sameeyaa. Marka qaabka ugu horeeya waxay tahay in videoga iyo audioga adigoo meeshan dul joogto inaad selection labadooda sidan aad ku saarato. Laakiin haddii waxyaabo fara badan ay kugu jiraan kaliya waxaad adeegsan kartaa controlka adiga hay midkaad rabto click sidaas ayaad ugu siinaysaa. Kadib marka right click ayaad leedahay kadibna waxaad ka dooranaysaa merge clips markaad ka xulato kaliya markuu boxkan kale kuu soo baxo waxaad samaynaysaa audioga ayaad jeega saaraysaa. Marka videoga iyo audioga markii videoga la soo geliyo timelinekan audiogiisa wuxuu noqonayaa track 1ka ayuu noqonayaa. Marka track 1kaas ayaan ku deynaynaa. Kadib marka waxaan leenahay okay. Marka hadda sidaad u jeedo waxaa noola sameeyay merging file oo video iyo audio isla soo. Marka hadda mouse-ka aan dul saaro sidaad u jeedo mp3 mp4 merged. Marka waa file la isku wada qabtay. Marka filekan ayaad right click leedahay kadibna waxaad sii leedahay new sequence from the clip. Marka sidaas ayaa hadda waxa lagugu keenaya videoga iyo codkiisa timeline-ka ayaa sidaasi lagugu yara keenaya. Levelada ayuu ka raacaya asaga mar walbo kaagama baahan inaad mar walba isku aadiso videoga qeybo kala duwan. Marka wuxuu raacaya waxay tahay codkii hore oo lowga ah quality-giisa liitay ayuu raacaya wuxuu iskugu aadinayaa levelada sida ay iskugu leeyihiin. Qaabka labaadna waxay tahay in aad videoga aad rabto right click aad daado kadibna new sequence from the clip. Marka hadda videoga sidaad u jeedo waxay noola soo gelinayaa timeline-ka. Marka tusaale ahaan hadda videogan levelkiisa codkiisa waan yareynaynaa hoos ayaan ka dhigaynaa waa midka kaba soo qaad aan dhahno waa midka low quality-ga ah. Marka hadda xoogaa yar zooming timeline-keena aan soo yara dhahno oo aan yara weynaysano si wax walba aan u aragno si clear ah. Marka hadda sidaad u jeedo codkan waa codkii oo asalka ahaa oo videoga aan ku yara duubay. Kadibna waxaan rabaa cod aan soo yara habeystay inaan videogayga aan saaro. Marka hadda anagu waxay noo samaysan cod aan soo habeey oo isla videogan codkiis ah laakiin effectiyo aan ku soo yara daray kadibna mp3 aan ka soo dhigtay. Marka waxaan soo yara keenayaa timeline-ka. Markaan timeline-ka sidaan oo kale aan ugu yara deeyo xoogaa yar kan labaad ka dhig oo sidaan oo kale aan u weyneeyo. codka videogan uu wato waa cod low quality bal dhageyso. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dhammaan waa idin wada salaam. Codka aan soo yara habeey isla videogan aana sidaan ayuu u yara dhawaaqayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dhammaan waa idin marka sidaad hadda u jeedo midkan assalaamu calaykum inta ayay ka yara bilaabanaysaa laakiin midka originalka wuxuu ka bilaabanayaa qeybtan inta ayuu ka bilaabanayaa. Marka haddaad rabto qaab manual ahaan waad samayn kartaa waad soo yara jiidi kartaa inta waad yara keeni kartaa. Laakiin mararka qaarkood waxaa laga yaabaa inaad khaladaad meel qaarkood aad ka bixiso laakiin aad u baahan tahay in la isku kaa aad videogaaga iyo audiogaaga. Marka waqti badan ayay kaaga qaadan lahayd isku aadinta videoga iyo audioga. kaliya waxaad samaynaysaa hadda labadan leen iskuma dhaba sidaad u jeedaan. Ugu horreyn waxaad samaynaysaa videoga iyo audioga low quality-ga iyo audioga aad soo yara habayso codkiisa ayaad select sidaan ku saaranaysaa. Kadibna right click ayaad leedahay kadibna waxaad ka sii xulinaysaa synchronize. Markaad synchronize aad ka xulato kadib waxaad leedahay audioga. Marka audioga track 1 kala raacayo waa audioga originalka ah oo originalka waxaan ula jeedaa in videogii hore loogu soo duubay kamerada
ama videogii hore loogu soo duubay codka kaas in la raaco codkiisa. Kadib marka audioga kadib waxaan leenahay okay. Marka hadda wuxuu sameynayaa videoga codkan hoose yaala ayuu codkan kale la yara simaya levelada uu isku yara aadinaya sidaad u jeedo levelada sidaas fudud ayuu iskugu aadinaya. Asaga marka wuxuu raacay waxay tahay hadba levelada meesha ay ku kala jiraan ayuu raacaya oo si nadiif ah ayuu kuugu sameynaya. Marka kadib waxaa laga yaabaa inaadan u baahnin codkii kamerada oo hore la socday low quality-ga ahay inaadan u baahnin ayaa laga yaabaa waayo waxaad isticmaali kartaa external microphone. Kadib codkaas waxaad leedahay codkaasi waa codkani. Marka waxaad leedahay right click kadibna unlink. kadib codka ayaad dooranaysaa kadib dal ayaad sidaas oo kale aad u leedahay. Hadda bal dhageyso codka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. marka marba haddii uu kuu soo galo codkii habeysanaay oo effectyada saarnay marka uma baahnid codkii liitay kadib waxaad leedahay dal ayaad leedahay. marka hadda videogaaga codka sidaas. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. dhammaan waa idin wada salaamay asxaabta ku xiran channelka Zimik. waqti fudud ayay kaaga qaadanaysaa. kaliya asaga wuxuu raacayaa synchronize-kan levelada codka in uu isku yara aadiyo. marka hadda waxaan fiirinayaa xoogaa synchronize-ka inuu si wanaagsan u shaqeynayo. xoogaa codkan oo high quality-ga aan yareeno xoogaa aan ka yara qarino kadib waxaan leenahay select right click synchronize kadib okay. marka hadda waxaan fiirinaynaa levelada in uu isku yara aadinayo. levelkan hadduu inta geeyo khalad ayuu sameeyey sidaad u jeedo levelka inta ma uusan geenin. kaliya wuxuu kuugu dhaafay waxay tahay videogan iyo codkiisa inuu si wanaagsan oo iskugu aadiyo waaye sidaad u jeedo levelkan ayuu ku aadan yahay. sidaad u jeedo marka waa wax iswada leh. badanan waxaa loo adeegsadaa synchronize-kan in codka iyo videoga laiskugu yara aadiyo. marka intaasi ayaan jeclaystay inaan idinla wadaago. fadlan haddii ay tahay marka kuugu horeyso channelkeena soo booqato fadlan subscribe saar fura calaamada gambaleelka si ay kuugu soo dhaca muuqaal walba aan soo gelino. midda kalena waxaan idinka codsanayaa inaad videogan la gareysaan si youtube-ka videogan ay usii faafiso lana wadaagna asxaabtaada si ay muuqaalkan ay ugu faa'iidaystaan. ugu dambeyntiin waxaan idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.